السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيرانتينا مركز عرب في جوجتين waxaan maanta idin haynaa war kale oo ka soo baxay maamul goboleedka Puntland. Shir ay maanta isugu yimaadeen madaxda Puntland oo hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa lagu shaaciyay in ay soo dhaweynayaan shirka dowladda federaalka laamisay isla markaana ay doonayso in lagu dardargeliyo qabashada doorashooyinka loo qabanayo waddanka Soomaaliya. Shirka oo ay ka soo qayb galeen golaha wasiirada Puntland isla markaana uu shir gudoominayay madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa waxaa looga hadlay xaaladda guud ee dalka oo marayo iyo weliba arrimo badan ee khuseeya maamulka Puntland. Arrimaha looga hadlay ayaa waxaa ka mid ahay heshiiskii hirgelinta doorashada ee dowladda federaalka ee kula saxiixatay maamul goboleedyada magaalada Muqdisho 17 Sebtembar ee sanadkii tagay. dowladda Puntland mar walba kaalin muhiim ah ayay ka qaadanaysaa sida dalka uga gudbi lahaa marxaladaha uu ku jiro, waxaana soo jeedisay inay muhiim tahay in dhaqso shir la isugu yimaado oo lagu qabto Muqdisho maadaama hay-adaha dastuuriga ah ee waddanka waqtigooda dhammaaday. Shirkuna u baahan yahay in waqti badan la geliyo si dhammaan saamileyda siyaasadeed ee beesha caalamka iyo dhinacyo kasta oo ay khusayso arrinkaani ay waqti u wada helaan ay arrinka ku korfeeyaan. Madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deni ayaa mar kale ku celiya diidmada iyo kabiyadiidista shirka oo madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo uu ilaamiyay in lagu qabto magaalada Garowe, waxayna arrintaani ay aad u daba socotaa arrimihii hore ee shirarku ay u baaqan jireen, kuwaasoo inta badan la shaacin jiray in ay fashiliyeen labada madaxweyne ee kala ah Saciid Cabdullaahi Deni iyo madaxweyne Axmed Maxamed Islaam. daawadayaal,